bismillahir rahmanir rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal ku soo dhawaada wararka habeenimo ee xogta ciyaaraha Channel. haddii Allah wadal raali ka noqdo qodobada aad caawa kula socon doontaan wararkayaga waxaa ka mid ah kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka oo markii toddobaad oo xiriir ku guuleysatay horyaalka wadankaasi. FA Ingiriiska oo abaalmarin guddoonsiiyay kooxda Manchester United. kooxda Chelsea oo ka fiirsanaysa inay u dhaqaaqdo weeraryahanka reer Brazil iyo kooxda Ajax ee David Neres. weeraryahanka kooxda Manchester United ee Marcus Rashford oo la xiriirinayo kooxda Barcelona ee dalka Spain. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan daawadayaal caawa idinkugu hayaa wararka habeenimo ee xogta ciyaaraha Channel. mar kale ku soo dhawaada. aan ku bilownay kooxda Bayern Munich ee dalkaasi Jarmalka ka dhisan ayaa markii toddobaad oo xiriir waxa ay ku guuleysatay horyaalka wadankaasi ee Bundesliga iyadoo oo galabta 5-1 ku dharbaaxday kooxda Inter Frankfurt ee wadankaasi kala dhisan. goolalka kala yimid Kingsley Coman, David Alaba, Renato Sanchez, Frank Ribery iyo Arjen Robben ayay kooxdu ku xaaqday kooxda Inter Frankfurt iyadoo oo markaa 2 dhibcood kaga qaaday horyaalka Bundesliga. kooxda kaalinta labaad ku dhameysatay ee Borussia Dortmund oo ina galabta 2-0 kaga badisay kooxda Borussia Mönchengladbach. 6 sano ee la soo dhaafay horyaalka dalka Jarmalka waxa ku raaxaysanaysay kooxda Bayern Munich iyadoo galabta labada kooxood ee kaalimaha koobaad iyo labaad ku kala dhameysay horyaalkaasi ee Bayern Munich iyo Borussia Dortmund. ciyaartooda oo soo dhacday 10kii galabnimo ay markaasi ahayd mid si gaar ah isha loogu hayay isla markaana la sugayay in Bayern Munich ay kufto oo Borussia Dortmund inta badiso ay horyaalka qaadi karto. rajada taageerayaasha Borussia Dortmund ayaa sidaas ahayd, laakiin Bayern Munich ayaa noqotay laba joojiyaal oo 5-1 ayay ku xaaqeen kooxda Inter Frankfurt. haddaba kulankaasi dhowr waxyaabood oo laga calaamadiyay waxaa ka mid ahaa labada qaarow ee kooxda markaasi lagu wado in marka uu dhamaado xilli ciyaareedku ay isaga tagaan ee Arjen Robben iyo Frank Ribery oo ciyaarta bedel ku soo galay ayaa 2 gool isugu faanay, waxaana markaasi ay si aad ugu dabaaldegeen labadaasi gool oo ay iyagu u arkayeen inay yihiin labadii gool ee ugu dambeeyay ee u dhaliyaan kooxda Bayern Munich oo ay la soo joogeen muddo fog isla markaana goolal iyo koob ay markaasi u hadiyeeyeen. kooxda Manchester United ee dalka Ingiriiska ayaa la guddoonsiiyay abaalmarin iyadoo oo Manchester City ay hanatay horyaalka dalkaasi Ingiriiska. Liverpool iyo Tottenhamna ay joogaan finalka Championka. Arsenal iyo Chelsea ay wada ciyaarayaan finalka Europa League. United waxa ay markaasi ku guuleysatay abaalmarin aysan taageerayaashu jeclaysan oo meelaha qaar ay ku dhaleecinayeen kooxda. United ayaa la siiyay abaalmarinta kooxdii ugu garoon fiicneed xilli ciyaareedka ee Premier League iyadoo garoonka Old Trafford waaxda nadaafadu ay ka dhigeen mid aad bilicdiisu ay u sareyso isla markaana uu mutaysay in la siiyo abaalmarinta garoonka ugu bilicda samaa xilli ciyaareedka 2018-2019. qaar ka mid ah taageerayaasha ayaa ka falceliyay abaalmarinta la siiyay kooxda Manchester United. mid ka mid ah taageerayaasha ayaa yiri waa faa'iidada inaan garoonka wax ku badan lagu ciyaarin, taasoo ula jeeday inaan ciyaarar wanaagsan ba lagu soo bandhigin garoonkaasi. taageere kale ayaa yiri miyay tani la micno tahay inay u soo baxeen Champions League. mid kale ayaa soo qoray aad baan uga yaqaaqsanayaa inaan taageero u noqdo akoonka shaqaalaha garoonka Manchester United. qaar ka mid ah taageerayaasha Manchester United ayaa Twitterka ku jeexjeexay abaalmarinta la siiyay kooxda iyagoo sheegay in uu soo maray sanad ay waxba yahay ahaayeen. isla wararka Manchester United ciyaaryahanka weerarka uga dheela kooxdaasi ee Marcus Rashford ayaa la xiriirinaya kooxda Barcelona ee dalka Spain. ciyaaryahanka heerka caalamiga ee u dhashay dalka England oo markaasi ciyaaryahan da'yar ah ayaa Barcelona waxa ay markaasi doonaysaa inay bedel uga dhigto weeraryahankooda Luis Suarez. 22 jirkan ee heerka caalamiga ee u dhashay dalkaasi Ingiriiska ayaa waxa markaasi maalmihii la soo dhaafay la hadal hayay in uu isaga tagayo kooxda uu ku biirayo Barcelona. wakiilka ciyaaryahankan oo lagu magacaabo Maynard ayaa yiri warbaahinta waxa ay sheegayaan waxa ay rabaan oo been abuura. waxa uu ku soo qoray bagiisa Instagram-ka sheeko noocaas isagoo ula jeeday in wararka la xiriirinayo Rashford kooxda Barcelona ay yihiin kuwo been ah. waxa uu qoraalkiisa raaciyay fadlan joojiya been abuurka iyadoo arintaasi markaasi uu wakiilka ciyaaryahankan ka hadlay. haddana warar warbaahintu ay qorayaan ayaa sheegaya in uusan Rashford haatan qanaaco ku haysanin garoonka Old Trafford isla markaana uu doonayo in uu u ciyaaro kooxda Barcelona.
kooxda Chelsea ee dalka Ingiriiska ayaa waxa ay markaasi danaynaysaa inay u dhaqaaqdo weeraryahanka kooxda Ajax Amsterdam ee dalka Holland ka dhisan iyo xulka qaranka Brazil 22 jirka heerka caalamiga ah ee lagu magacaabo David Neres waxa ay rajeynaysaa kooxda Bluesku in dib loo dhigi doono xayiraadda laga saaray laba suuq xilli ciyaareed oo markaa laga ganaaxay suuqa dadaal ayay ugu jirtaa Chelsea sidii ay maxkamadda ciyaaraha go'aankaasi u gaari lahayd oo dib loogu dhigi lahaa ganaaxa lagu soo rogay si xilli ciyaareedkan ay ciyaartoy badan oo muhiim ah u soo iibsato kooxdu Daily Star ayaa ku waramay in Chelsea haatan ay doonayso u dhaqaaqida weeraryahanka da'yarka waxa kale oo jira kooxo dhowr ah oo daneynaya ciyaaryahankan David Neres waxa kamid ah kooxda Liverpool ee dalka Ingiriiska ka dhisan oo macalinka kooxdaasi Jurgen Klopp oo aad u daneynayo inuu la soo wareego weeraryahanka garabka ee David Neres dawadayaasha qiimaha leh wararkii ciyaaraha ee habeenimo aad kala socoteen xogta ciyaaraha Channel inta ay noo joogan wararka soo kordha oo ka mid yahay natiijada kulanka haatan socda ee finalka FA Cup-ka ee Man City iyo Watford dhex maraya waxaad kula socon doontaan wararka iyaga dambe insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo